السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان أصحابتي وين حلقة واحد نقص سلامينا قوبتن دالحيس كا لو تلاقلي dadka isjecel ama lamaanaha laakiin maanta barnaamij waxaan halkan aan iiga sheekeynaynaa ku saabsan jacaylka ku dhigiisa barnaamijkaas oo ku saabsan laba qof oo hadda ka hor jacayl soo dhaxmaray oo labadaba ay aniga aan maartay dad aan isku loodahayn oo aan ka wada sheekeysan jirnay aan iskuulkana wada dhigin jirnay saaxiibo khaas ahayn waliba khaasatan inanka waxaan ahayn saaxiib lilaahiya oo xaqiiqadii ay nafta iyo noloshu ay naga dhaxayso xaqiiqadii waxa la oran jiray faarax baa la oran jiray inantana waxa la oran jiray fartuun baa la oran jiray dabadeed marka waxa dhacday arrinta horta qisadu labada qof bay dhaxmartay waxa la iga sheekeynaa maaha waxaan anu xogogaal aan wahay oo aan soo taagnaa barnaamijkaas ayaan doonayaa inaan aan nila wadaago aan asxaabteeda aan la wadaago waxaan dhigan jirnay qisadaasna waxay ka dhacday iskuul bay ka dhacday secondary anagu aan dhigan jirnay dabadeed waxa dhacday adu muddo gaaban dabadeed ayaa ninkii saaxiibkay ahaa ayaa waxa ku dhacay xanuun aan dawadiisa la garanayn waxa uu yahay cid garan karta ma jirto maalintii uu iskuulka imaan waayay maalintii ku xigtay ayaan waxaan ugu tagay guriga isagoo jiifa guriga markii aan ugu tagay waxaan weydiiyay su'aalihii aan weydiiyay waxa ka mid ahaa saaxiib maxaa kugu dhacay anu markaa maalintii hore uu imaan waayay waxaan ku xisaabiyay qofka bini'aadmiga dan buu yeelan karaa noocay doontaba ahaatee nin marka dan yeeshay ayaan anu ku xisaabiyay maalintii labaad uu imaan waayay ayaan waxaan dareemay inay wax ka siihiin markaan iskuulka ka baxay ayaan sii maray gurigii baan ugu tagay markaas waxaan la wadaagay xaalkiisu waxa uu yahay iyo maartay dhibaatada soo food saartay iyo waqti xaadirka wuxuu ku sugan yahay dabadeed wuxuu ii sheegay niyow wax adu markaa xanuun ama dhibaato uu sheegan karayo oo qofka isaga nafsahantiisa soo wajahay inuusan garanayn markaa dabadeed waxaan idhi marka inaad waxbarashadaadii aad ka habsaantid oo dib uga dhacdid oo asaaga aad ka hadhid maxaa kuu koskareeyey wuxuu markaa ii sheegay in arrin yari ay ku dhacday arrintaas oo ku saabsan horta xanuun uu markaa nafsahaantiisa uu dareemaya ama uu odhan karo halkaasaa layga hayaa ama qaabkaasaa lay hayaa horta midina ma jirin laakiin wuxuu ii sheegay in xanuun ama maaragtay isaguba uu fahmi waayey inuu ku dhacay ayuu markaa ii sheegay waan dhiirigeliyey waxaan ku yidhi insha allah wax iska dhibaato amaha maadaama wax maanta aad dawo aad uga baahan tahay ama in lagula tacaalo aad u baahan tahay aysan ahayn iska iloow baan ku yidhi waxaasoo dhan wuxuu igu yidhi saaxiib waa yahay berri insha allah biidnillahi kariim waan imaanaya iskuulka sidii ayaan ku ballansanayn maalinimadii dambe wuu yimid markaan anagu aan casharkii iyo waxbarashadii inta anagu aan ku jirno ama casharkii markaa naloo dhigay aan qoranayno iyo marka maaragtay casharka la sharaxayo midna lama socdo ninkan uu maqan yahay waan dareemay ninkan wax weyn inay ka sii yihiin oo xagga qalbiga ah marka sidaa la adligeed waxaan la wadaagay in uu xogta dhabtaa ii sheego ee isaga haysa dan wuxuu ii sheegay qofta iyada ah inuu aad u jecel yahay laakiin isagu markaa jacayl lama odhan karayo laakiin aniga wuxuu markaa iigu tilmaamay in ay ka dhaxeeyo in markii uu arko in gebigiisuba baraksharkiisu hoos u dhacayo in markay iyadu ay sii jeedo inuu ka sii jeesanayn laakiin hadday soo eegto uu noqonayo qarsho la kala jabiyey sidaa awgeed markuu barnaamijka ila wadaagay because markii horena weligii yaalihii jacayl wax la yidhaahdo muu gelin cid lamuu sheekaysan meel muu fadhiisan dana gaara cid ay dhex martay ma jirin waa markii ugu horreysay arrintaasi ay culayskiisa uu fuulay waxaan ku yidhi inaadan marka jacayl baa ku hayee inanta waa jeceshahaye inaadan wixii aad qarsato way ku qarsadaane u sheego gabadha waayahay buu igu yidhi isagoo laakiin ay kaga culus tahay in la yidhi baddaad aragtay intay leegtahay macaanee intaad sonkor ku dartay gebigeeda xareed ka dhig ama shaah ka dhig oo macaanee way kaga darnayd laakiin wuu dhaafi kari waayahay buu igu yidhi 3 cisho ayuu ii meermeerinayay oo igu meermeerinayay isugu iyo halkan asaan yeelaya iyadu iska dareemi kartaa qof baqaya waxaan marka ku dhiirigeliyay oo ku guwaabiyay markaan iskuulkii ka soo baxnay
iyada oo habla saaxiibadeeda iskuulka banaankiisa daaqada meel daaqad ah hoosteed ay wada taagayeen oo sheekaysanayaan ayaan ku yiri taas in kale inoo geey sida la aligeed waan soo qasbay markaan la soo istaagno waan salaanay dhamaantooda oo naga qaadan si wanaagsan bay noola hadleen waxaan ku yiri walaalo waxaan doonaynaa in aan arrin yar kula wadaagno waxay tiri walaalo dib male ii sheeg waxaan ku yiri saaxiibka Faarax ayaa arrin yar maartay doonaya inuu maartay kula wadaago walaalo Faarax soo daabaytay marka iyadu marnaba may filin barnaamijka noocan oo kala dabadeed wuxuu u sheegay arrinkii waan ku jecelahay maxaa tiri ku tiri ku soo celi waan ku jecelahay ku walaalo labada indhood bay dharbaaxa ku guysay candhuufna waa ugu dartay waxay tiri ma adigoo noocaasa ayaa waxa doonaysaa inaad aniga aad nolosheeda aad soo faragashatid mar afkaaga way ka soo baxday laakiin mar labaad ay ka soo bixin hadday ka soo baxdana waxaad ogaanaysaa kabta aan xidhanahay lambarkeeda inaad baran doontid marka iskuulka waxaan la dhiganayay laba inamood oo iyada la dhashay buuqii bay ka soo baxeen waxay moodeenba in gabadhii la weeraray wayna la dagaalameen calaa kulli xaal maamulihii iyo macallimiintii iyo ardadii oo dhan way isku wada yimaadeen calaa kulli xaal goobtii waxay noqotay goob fadeexo ay noqotay dabadeed adigu sidii ayaan ku kala dhaqaaqnay saaxiibkay Faaraxana maalinta ayaa ugu dambeysay iskuulkii because noloshiisii iyo qalbigiisii ayaa aad dhaawac far badan u soo gaaray barnaamijkeedu marka intaasan maanta ku soo gabagabaynayna asxaabay qaybihiisa dambana waa nila soconsiin doonaa haddii Ilaahay idmo waxaan nagala socon doontaan insha Allah biidhnillaahi kariim channelkayga ee Cali Official idinka oo barnaamijkan xaqiiqadii markaad ogaataan aad u dareemi doona aadna noloshiina ay u xiiso gelin doonto barnaamijka iyo barnaamijyo fara badan oo aan soo wadno ayaan markasta inuu wacyi gelinaynaa channelkayga inaad ugu xidhnaataan si toos ah waana in salaameynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh